xujaydan soo gutay waajibaadka xajka oo ka soo degay garoonka diyaaradaha Boosaaso ayaa waxaa waday shirkadda diyaaradaha Juba Airways. tirada xujayda saarna diyaaradan oo nooceeda loo yaqaan Airbus ayaa dhammaa 189. diyaaradan oo si toos uga soo duushay Sacuudiga ayaa saacado kooban ku soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha Boosaaso oo si casri ah loo dhisay, waxaana ka mid ahaa xujaydii saarnaa diyaaradan wasiirka maaliyadda, wasiirka cadaaladda iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan culimada iyo sidoo kale dadweyne kale oo soo gutay waajibaadka xajka. Salibaan Cabdi Cali Daqare iyo Cabdullaahi Cabdi Aadan Budeey oo ka mid ah saraakiisha shirkadda diyaaradaha Juba Airways ayaa sheegay in duulimaadyada diyaaradan ay joogto noqon doonto. annaga ka Juba ahaana waxay noo tahay farxad maadaama falaadka ugu horeeyay oo 190 iyo 189 qof qaada aan maanta ka soo dishinay aad iyo aad ugu qayb qaatay sidii baahida looga bixi lahaa oo dadka reer Puntland ay u heli lahaayeen falaadyo toos ah oo caalamka ku xira. anoo ku hadlay magaca Juba Airways ma noqon doonto falaadka ugu horeeyay ama kii ugu dambeeyay. insha Allah waxaan rajaynaynaa inay si joogto ah u bilaaban doonaan. waxaan aad mar labaad u mahadcelinayaa shaqaalaha airportka Boosaaso oo runtii dadaal badan muujiyay. Dubai هذا كده مدعي doonto in dadweynaha Puntland inay ku jactilmaan safarradoodii waxay noqon doontaa diyaaradda Juba Airways mid joogto uga shaqeysa. aadaan ugu faraxsanahay dhammaan waxaan aad ugu hambalyeeynaya shirkadda Juba Airways shaqaalaha intaaskeeda meel walba joogto. waxaan leeyahay hambalyo. Maxamed Xirsi Jabra, Puntland TV, Boosaaso.